السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقا سو دوادا cuntadan raba inaan tustuso maanta aan karinaya qada yar ayaan kaga soo tuuraya 2 minute halka waxaan saaray digaag baa dabka ii saaran 10 minute kana kaarootan jarjaray spinachna waan soo qaatay ama koosto kolba sidaad u taqaano hadda waxaan sameynayaa kaarootii ayaan dabka ku shubayaa digsi baan dabka saaray 10 daqiiqo ayaan karkarinayaa balkii mar raba in borotiinku ka dhinto inta badan anigu kulay caruur baan wuxuu kariyaa caruurtuna iskoolay aadaan iskoolada cuntooyinka lagu siiyana maaha cuntooyinka gurigeena aynu ku siino waa cuntooyin adag oo maartay sida dadka waaweyn loogu kariyo marka waa muhiim inaad ilmahaaga barto cuntada dadku ay cunayaan marka waa muhiim ilmahaagu inuu kula qabsado cuntada ay caruurta kala cunayso hadda kaarootaha dabkan saaray waan ka soo dajiyay milix yar baan ku soo shubay haddana waxaan sameynayaa spinachkii oo aan soo dhaqay ayaan isagana 5 daqiiqo karinayaa spinachku markuu 5 daqiiqo soo karo waxaan sameynayaa isagana gooni baan u dhigay waxaan saliid ku shiilaya malahan isagana gooni baan u dhigayaa muhiim weeyeen cuntooyinka ay dadku cunayaan ilmaheena aynu barna hadii kale ilmuhu iskoolka cunto kaama cunaayo oo lama jaan qaadayo dadka hadda waxaan soo qaadanayaa baaquliga yar wax lagu shiido waxaan sameynayaa qudaartii aan digaaga ku sameyn lahaa ayaan hadda shiidayaa kamsar caleen baan ku daray barbarooni baan ku daray haddana 2 jeex oo liin dhanaan aan ku darayaa haddana waxaan ku shubayaa jeex basal ah 3 xabbo toona ayaan ku ridayaa toonteena caadiga waxaan kala ku darayaa filfil taas waa filfisha cad marka filfisha cad iyo filfisha madow waxay ku kala duwan yihiin filfisha cad ma kulula udgoonna way ku siinaysaa taasina waa qaado huruudeena caadiga ah ee cuntada lagu darsado taasina waxa weeye sinjibiisha budada hadii jeer anigu sinjibiisha iyadoo buda ay iyadoo kala cuntada mar walba waan u isticmaalaa aniguna waan cabaa marka taana in baan ku shubayaa waxaan kaloo hadda sameynayaa khamuun ayaan soo qaadanayaa qaada khamuun ah khamuunta macnaha isku jirta ee nooc walba le isku wada jirta ayaan isticmaalaa oo intaan soo wada sameeyo oo aan dubo ayaan shiitaa waxaan kaloo sameynayaa qaado barbarooniga cas ah bahalka basbaaska cas ee kululayn baan ku shubay waxaan ku shubayaa yogurka zero weeye garaasi faad malaha yogurka in wad qiyaasanaysaa in anigoo kale waan ku wada sameynayaa inta kalena waan ku shubayaa balkee digaaga badan kaasina waxa weeye olive inta badan cuntada anigu waxaan u isticmaalaa aan caruurta siinayo olive-da waxaan kaloo hadda ku shubayaa in yar oo milix ah oo aan anigu ku qiyaasanaya caagadeeda qaabka aan uga shubanayo kale adiguna gacantaada waad ku qiyaasan kartaa intaasoo dhan marka aan imika isku shiido hadda waxaan ku sameynayaa khal ayaan ku darayaa khalkeena caadiga ee salaadka iyo cuntada lagu darsado hadda waan isku shiidayaa mashiinka markaan ku shiido aan mashiinka ku shiiday ku dhameystiro digaaga 10 daqiiqo ii soo kare barka aniga muhiimadeydu waxay tahay digaaga aan sameynaya ama tacabka aan galay in ilmahaagu cunaan oo ay ka dhargaan wax qurux badan ilmahaagu ku cunaan muhiimada ma aha inaad ka fikirto maartay faarax inaad wax kasta isaga u diyaariso caruurtaada iyo faaraxaagu labaduba si yar qurux badan way ku wada qadeyn karaan waa qaabka adigu aad qadada caruurta iyo ninka ugu hagaajiso waxaan arkay dumarka la duwayo koodhanaya ilmaana gooni baa loogu sameynaya ninkana gooni baa loogu sameynaya laakiin labadaba waad isugu sameyn kartaa cunto qurux badan ay wuxuu xiiseeyaan oo miiska si fiican ugu wada cunaan hadda spinachki waa soo kariyay isagana waan ka soo dajiyay hadda digaagii oo ii karsan oo ii diyaarsan biyo iyo milix baan ku soo kariyay 10 daqiiqo anigu ujeedadeedu mar walba waxay tahay digaaga sidiisa waan u sameeyaa foornada waan geliyaa markay marti ii imanayso kale si kale waan u sameeyaa laakiin mar walba muhiimadeedu waxay tahay in la share gareeyo qaabka ay caruurtayda digaaga u cunaan hilibkana waan tusayaa insha Allah marka hadda digaaga waa ii diyaarsan yahay 10 daqiiqo soo karkariyay xabixta hadhuuto shiilitaan saa fara badan uma baahna jawaab bisiliye digaagu markii soo rabo wuu iska bisil yahay hadda waxaan soo qaadanayaa baaquligaas waxaan ku gurayaa digaagii waxaan sameyn doonaa insha Allah markaan digaaga ku guro ee ku dhameystiro waxaan ku shubayaa wax allaale wixii aad soo shiiday oo dhan barkee cuntadana aad bay u fududahay wallahi inaanay 20 daqiiqo kugu qaadanaynin cunto wanaagsan miiska waad soo saaraysaa oo qof yar iyo weyn ay cuni kara xitaa waxa jira dad waayeela oo maanta aan sameysan karin oo adayga naal aan calaalin karayn oo rabin cuntadan maaragtay hilibka adag oo kale oo dhibsanaya marka waxaad sameysan insha Allah asxaabta qaaliga waynu kala faa'iideysanaynaa
kala faa'iidaysi waan markaa saa ula socda. hadda spinachkii ayaa biyihii kusoo guray, waan ka shaandhaynaya. milix kaliyaan ku daray, kaarootaana milix kalaan ku daray. hadhow toonani tusaya gadaal qaabka isagana aan u samaysto. marka waa muhiim, hal cunto miiska lama saaro, dhowr cunto kala gedisan baa miiska caruurta loo saaraa, marba mid bay xiisaynayaan. hadda kaasi waa digaagii bacman afka kaga xiday 30 daqiiqo 40 daqiiqo. intaan hawlahayga kala soo qabsanayo ayaan dhulka iska sii dhigayaa. waxaan sameynaya hadda saliid baan dabka soo saaray, digaagii baan kusoo guray, wataa suugadiisiiba saa uga daaysa, lafta ka gashay, labac baan kula xiday, macaan saasuu kala daadanayaa baan kuri. maasha allah tabaaraka allah. hadda saa u samaysaad baroobaysa, wallaahi baanad gurigaaga wax kale u samaynaynin. hadda waan shiilayaa, waxaan shiilayaa digaagii. hadda aniga waan shiilayaa, digsigii baan ku gurayaa. saliidda markaad ku shiilayso digaaga waa inay kor uga sarreysaa, saliiddu kor uga sarreysaa si ay kugu wada shiilmo isagoo qurux badan oo kugu soo wada baxo. dabeedna hadda shiilitaanka inta aan shiilayo 20 daqiiqo ii shiilmaya masuu sii jilcaya. hadda waxaan soo qaaday digsi, waxaan kusoo shubay basal yar, barbarooni yar, hayl yar, khamuun yar, kalar yar oo akhtar ah. bariiska waxaan rabaa kalar yar oo qurux badan inaan uga dhigo. kole niyadayda ka keenay waxaan aan dee walwalaaqayo ma garanaysaa. marka idinkana wuu macaan yahay oo waan jeclaystay. marka ana waxaan dee la faa'iidaysa dadkaaga. hadda biyihii aan ka saaray digaaga ayaa bartaa igu diyaarsan. dabadeedna bariiska ma shiilayo, shiilitaan iyo waxaas ma jiraan. weliba bariiskan u karinaya maaha baasande, bariiskan karinaya waa bariis talyaani, waa bariiska ayagu cunaan ee maaragtay burburan ee iskooladana caruurta lagu siiyo. marka aniga hadafkayga iyo ujeedkaygu mar walba wuxuu yahay ilmahaaga inaad siin karto cunto aada u qurux badan oo wanaagsan ay ku farxaan oo ay ku bartaan. walahi aniga caruurtayda aad bay maasha allah ilaahay barakeeyo gacantayda u jecel yihiin, way sugaan. وكا بريسكي باسنده maaha, waa bariiska burburan ee bariis talyaaniga weeye ee marka biyaha lagu shubo dhooshada noqda. laakiin kan furfur buu hadana noqonayaa barkay qaabkan u karinaya ayaa qaab wanaagsan ah. kalar yar cuntadiisi wixii ma shiilin ba hal mar ban biyihiisa damkusi. hadda waxaan soo qaatay maqli waxaan ku shubay kaarootihi iyo spinachki oo ay diyaarsanaa oo aan biyihi ka shaandheeyay ayaan ku shubay oo dabka saaray. waxaan ku darayaa in yar oo olive ah. markasta cuntada anigu olive aan ku karsado, anu saliid cadeed cuntada kuma kariyo. filfisha tii cadaydan inii sheegay xoog uma kulula, barkeeta madow ayaa xoog uga kulul. kaasina waa khal yar, in yar oo khalaam aan ku daray. waxaan kaloo ku daray in yar oo liin dhanaan ah. qaadada yar baan ku walaaqayaa oo ku kala bixinayaa. qaadada markaan saa ugu kala bixiyo kiyo macaanka dhanaanka dhanaad u qaadaba aanad garanay ilmuhu saa u midhamidhaysanayaan. marka hadda saxnigaasaan kusoo diyaariyay oo jeedaa karooti xooguma adka, xooguma jilicsanaa, waa iligay ku dhufanayaan. digaagiina waa ka maasha allah baroobe. odaygaguna cunto fiican buu ku cunaya, ilmahaaguna cunto fiican. maxaa inagu dawaqiyeen inunba cunto loo karinaya. imaka u jeeda digaagii maasha allah bariiskii yaraa hurug wuxuu noqday akhtar. kamsar caleen yar baan kor ka saaray dhag cunto yar oo wanaagsan oo qurux badan indhaa qabsanaysa. ilmo walba wallahi saxnigiisa intaan saa ugu shuban miiskooda fadhiisanaanu sheekaysanaa, walaa ka ugu yar walaa ka ugu weyn. marka asxaabteeda qaaligaa ka faa'iidaysta. xaajigaaga waad siin kartaa, caruurtaada waad siin kartaa, waalidkaaga waad siin kartaa. waa cunto yar oo jilicsan, waa cunto healthy ah. kaarootuhu indhuhu fiican yahay, spinachku calooshu fiican yahay. digaaga waa ka hadda saas u jilicsan yahay Soomaaliyeed ee gacantayda hadda saas u kala daadanaya. dabadna ilmi markuu qabto bariis baa buu moodayaayo. waxaan ku isagoo ku siibtay baad arkaysaa. haddaad u baahantahay olive yar ayaad korka kaga darsanaysaa. haddaad u baahantahay sidaas oo kale maartay kaarootaha oo kale saas oo kale. asxaabta aad baa inii salaamaya share